بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى halkan waxaan kaga hadlaynaa darsi muhiima oo ku saabsan xuquuqda dadka jiiraanka ah. Marka jiiraanka waxaa loo qaybiyaa siyaalo badan. Jiiraan, xaqul jiiraan oo waxaa jira ruux jaara jira oon muslimba ahayn, kaasi xaqul jiiraan buu leeyahay. Ruuxna waa ruux jiiraan ah oo jaar kula ah, muslimna ah, kaasina laba xaq buu leeyahay. ruuxna waa ruux jaarna ah, muslimna ah, qaraabana ah, kaasina saddex xaq buu leeyahay. xuquuqdaas siday tahay ayay diintu u ilaalisay marka mid walbana. Marka si kastaba ha noqotee ruuxa jaarka kula ah ama muslim ha noqdo ama yuuna noqon, ruuxa muslimka waxaa loo baahan yahay inuu xuquuqda jiiraanka ilaaliyo, uu guto siday u tahay ay diintu ugu talagashay. xadiid saxiixa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxiixaynka ku sugan oo nabiga ka sugnaaday min xadiidi abaa hureyra xadiidka uu nabiga ka wariyey ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi wallaahi laa yu'min buu yidhi. saddex jeer buu nabigu wuxuu yidhi muuna rumaynin ilaahay rumaynin, wallaahi muuna rumaynin, uba dhaarta nabigu. qiila waxaa la yidhi man yaa rasuulallah, ruuxaa saddexda jeer aad ku dhaaratay een rumaynin waa ayo? qaala nabigu wuxuu yidhi alladii kii weeye laa ya'manu uuna aamin ka noqonayn jaaruhu jaarkiisu bawaa'iqahu sharkiisa, ruuxa sharkiisa uuna aamin ka noqonayn jiiraankiisu muuna rumaynin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka masalo adag weeye oo loo baahan yahay ruuxa muslimka ah inuu jiiraanka iska ilaaliyo. wasu'ila rasuulullaahi sala allahu alay wasalam, nabigaa la weydiiyey ayu dembi acdamu cinda allah, dembiga ilaahay agtiisa ugu weyn. fadakara nabigu wuxuu sheegay bihalaati khilaal, saddex qaybood buu sheegay oo dembiyaha waaweyn ah. wa qaala wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan, ilaahay inaad u shariik yeesho ood ilaah kala garab dhigto. wa huwa khalaqaka, isagoo ku abuuray, kaasi waa dembiga ugu weyn. wa an taqtula waladaka makhaafatan an yudcima macaka, inaad ilmahaaga disho adoo ka cabsanaya inuu cunto kula cuno. wa an tusaanii xaliilata jaarika, jaarkaaga inaad ka sinaysato xaaskiisa ama islaantiisa. xadiidkaas waa muttafaq. marka xuquuq fara badan baa jirta dadka islaamka inay ilaaliyaan yaa loo baahan yahay. waxaa loo sheegayaa axaadiidtan markasta loogu soo celcelinayaa inaan baranno oon sidii nabiga iyo asxaabta ugu camalfalno. wabilxadiidi saxiix, xadiidka saxiixa waxaa ku sugnaa man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir, man ruuxii kaana ahaa yu'minu rumaynaya billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamada, falaa yu'dii yuuna dhibin jaarahu jaarkiisa. muttafaqun caleyh. sidaa waxa weye xadiidkaasna waa la isku waafaqsanya isagana. marka waa anigii goorta dow soo sheegayoo saddex weeyaan qaybood jiiraanku. qariib oo lahu xaqul jaar wa xaqul islaam wa xaqul qaraaba, ruux macnaha ay u sugnaaday xaqul islaamkii waa kugu leeyahay, xaqul jaaraankina waa kugu leeyahay, xaqul qaraabana waa kugu leeyahay. saddexdaas waa mid. wa jaarun muslim, ruux muslina lahu xaqul jiwaar wa huwa xaqul islaam, waa isaguna wuxuu kugu leeyahay inaad si fiican ula dhaqanto, xaqii islaamka iyo xaqii jiiraanka aad ilaalinaysa, labadaasuu leeyahay. waljaaru lkaafiru, ruuxa kaafirka ana lahu xaqul jiwaar, xaqul jiwaar buu isna leeyahay oo la ilaalinayaa. intaaba diinteennu way ku dadaashay, marka lama rabo in laga gudbo, lama rabo. wa kaana ibnu cumar radiallahu canhu, ibnu cumar wuxuu ahaa lahu jaarun yahuudiy, cabdullaahi ibnu cumar baa waxaa u sugnaaday waxaa nin yahuudiya jaar la ahaa. wa kaana wuxuu ahaa idaa dabaxa shaata, markuu neef gowraco, yaquulu wuxuu odhan jiray axmiluu qaara ilaa jaarinaa alyahuudiy minha, qoladaa yahuudda ahee jaarka aan nahayna wax ka siiya buu odhan jiray. waa nin yahuuda. waruwi waxaa la weriyay ana aljaara alfaqiir yatacallaqu biljaari alghaniy,
yowma alqiyaama. waxaa la sheegay ruuxa jaarka ahee faqiirka ah inuu hadduu ninka jaarka ee la yahay qani yahay inuu maalinka qiyaamada qabsanayo hadduuna xaqiisa gudanin. wayaquulu wuxuu odhanaya yaa rabbi sal haadaa weydii lama aqlaqa canii baabahu, muxuu albaabka iiga xidhay bal weydii. marka waa xuquuq fara badan oo jiiraanka yani waxa weydiintu aad bay uga hadashaa, gaar ahaan inagu markaynu wadamadan hadda joogno, wadamadan gaalada in dadka diinta ugu yeerayno waxaa loo baahan yahay akhlaaq wanaagsan, jaar wanaagsan inaan tusno, maxaasin islaam inaan tusno. muxaadarada yara gaaban allah inagu anfaco. haddaad dhegaysato usii gudbi dadka muslimiinta ee walaalaha si ay uga faa'idaystaan. wallahu aclam. sala allah calaa sayidina